سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan magacayga aniga horta waxaa la yiraahdaa Umar Maxamuud Suldaan Hire Garasaal baa la yiraahdaa odayaasha Jubbaland baan ka mid ahay waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo farxadda raynraynta waxa aad ku jirtaan inaad kala qayb galaan aad iyo aad baan Ilaahay ugu xamdinayaa marka hore Ilaahay baan u mahadinaynaa caafimaadka ina siiyey aqliga ina siiyey ilaahaygaasaan u mahadinaynaa marka labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Kenya ee dadka intan dhan iyo inta kale ka sii badan ee boqol jibaarka gacanta ku haysay ee dhulkooda ku nabadgelisay markii dhulkooda ay ka burbureen ee u soo kaceen dalalka deriska ah meel kale ay ku istaagaan markay waayeen waxay yimaadeen Kenya u yimaadeen Kenya waxay u samaysay waxaan la arag dadka intan dhan iyo boqol jibaar oo kala ku dhashay ku dhaqday gabdhii ku dhashay baa shandal lixdhal ah wiilasha ku dhashay baa jaamacad ka baxay oo laga yaabaa inay maamulada ku jiraan Ilaahay baa mahad iska leh dowladda Kenya dalka aad ku dhalateen ee hadda leedihiin aan ku noqonaan rabnaa kiisa labaad weeye ma aha dad lagu ballan furo ma waxaan rabaa inaan idin ilaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloon mahadda labaad ku darayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud bini'aadanka kolkaad baahan tahay oo dibaysan tahay waxaa lagu leexdaa qofka deeqsiga ah ee martida jecel baa lagu leexdaa ee qofka bakhaylka waa laga leexdaa qofka bakhaylka waa laga leexdaa qofka gogosha fiican leh ee gasiinka fiican la balaada waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan meeshan u taaganahay soo dhoweynta farxadda raynraynta Xamse Cabdi Barre magacaawiisa ra'iisul wasaaraha loo magacaabay baan halkan u taaganahay intaan hadda idinla fadhiyay qolaa markhaatiga ahayd waxaan gaarsiiyey kismaayaan u sheegay waa la duubay oo hadda way haysteen way ku qosqoslayeen shirkiinan waa kuwan markhaatigii qolada gadaasheeda fadhiya ka ah waxaan tusaynay in ayn iyaga keliya ahayn farxad meel walba ay ka jirto waxaan idinka mahadcelinaynaa qolyihiinnan qaxootiga jooga waxaan idinka mahadcelinaynaa raynraynta iyo farxadda ee Soomaalida ah qoys ma tihiina Soomaali baa tihiin Soomaalida joogta meeshan ee ra'iisul wasaaraha lagu doortay Soomaaliya waxaan u samaynayso abaal gudkeeda waad helaysaan ama Ilaahay baad ka helaysaan ama Ilaahay baad ka helaysaan ama isaga iyo annaga iyo inta joogtaa gudbinayno waad helaysaan Soomaaliya wax badan may soo martay way murmurtay Soomaaliya ma indubin shay hadduu dumo waxba ka hadho waa la tootoosin karaa
laakiin hadduu murmuro bakeeri jajabay meel laga qaada ma leh soomaaliya markay jajabtay meesha ay timid ay ku nasatay ee isku urursatay ee wax ku noqotay meeshan aad joogtaan weeye kol haddaad aad u garaysan tihiin dalkiinni in aad u baahan tihiin inaad ku noqotaan wuu jiraa dalkiinni wuu joogaa risiqiisi iyo dhacaankiisi wuu buuxaa wuu ceegaagaa baa la yidhaha macnaha weelkii buuxsamo wax kalaa lagu sheegaa waxaan rabaa inaan idin idhaahdo haddii ilaahay yidhaahdo ninkii dalkiisa rabana wuu ku noqonayaa dalkii nin kalaa joogtaanoo hadda qaxootiga farihina in badan baad iska bixiseenoo aad ba uma rabtaan maan u mara inaad galaal u noqotaan laakiin qofka raba inuu ku noqdo soo dhowayntan ka fiican buu meel walba kala kulmayaa ilaahay baa mahad iska leh waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay baan u mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay magacawga la magacaabay xamse cabdi barre caadi ma aha soomaali caadi kuma aha deegaanadan caadi kuma aha waxaan u malaynayaa in wax weyn lagu gaari doono wax weyn in lagu gaari doonaan u malaynayaa waxaan rabaa inaan idin idhaahdo warkiinnana waa la gaadhsiinayaa isagana wuu og yahay nin aqoon-yahana weeye anu waan aqaanaa saaxiib baana iskameliya saaxiib baana waan aqaanaa dadka wuxuusan aqoonin sheegtana miihi oo nin duqabaano hadda geeridii baa ay taaganoo beenba ma rababa inaan berri dhiban baan ogahay waxaan rabaa inaan idin idhaahdo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan soo dhowaynaynaa magacawga ninkaas waxaan ilaahay uga baryaynaa in hawshiisa alla u dhib yareeyo qolaa durba lugaha ugu jirto oo sheegaysa wax kale soomaali haddii ninku reerkooda uu noqon waayo nabi maxamed hadduu noqdo laftiisu waa waxbaa laga sheegi qabiil baa ina dilaya qabiil wax lagu gaaraya ma jiro soomaali qoys ka adkaada waa la waayey qolyihii la xaman jiray baa inaga wada adkaaday oo dadka wada eriyey nin walba tabartiisa waa la ogaaday waxaan rabaa inaan idin idhaahdo soomaalinimaa ina deeqaysa soomaalinimaan wax ku noqon karnaa soomaalinimaan meel ku tegi karnaa soomaalinimaan qaran ku noqon karnaa waxaan rabaa inaan idhaahdo qolyahan wax bartay ee dhallinyarada qolada dhallinyarada ee wax bartay soomaalinimaan idinkula dardaarmayaa ninkii uu shaqo la siiya soomaalinimo waxeeya qoyskiina waxba ku tari maayo waxaan rabaa inaan ilaahay u mahad celiyo idinkana aan mar labaad iyo mar saddexaad iyo waxaan hadda sheega garan maayo ninku hadduu suufi yahay saarka markuu tuntana wuu dhacaa oo wuu burraa la yidhaahdaa markuu meel lagu xadrayn arkana wuu dhacaa oo waxaa la yidhaha wuu judbooday hadda inaan judboodo dhacaan ka yaabi waxaan rabaa inaan idin waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhallinyarada bahda saxaafadda ururka haweenka odayaasha odayaal dhaqameedka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee xafladdan qiimaha iyo sharafta ee si wacan loo soo gaasimay ka soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marka koowaad ilaahay baa mahad leh marka xigta bulsho weynta meeshan iskugu timi xafladdan waxaa la iskugu yimi waa xaflad hambalyo soo dhowayn kalgacal leh oo aynu ku soo dhowaynanno ugu hambalyaynanno ra'iisul wasaaraheenna ummadda soomaaliyeed mudane xamse cabdi barre cali aad iyo aad baannu mar labaad iyo mar saddexaad u soo dhowaynaynaa waa nin xilkan loo doortay ka bixi kara waa nin sida la ii sheegay runtii quraan ruuga weeye aad iyo aad baannu soo dhowaynaynaa ra'iisul wasaaraha waxaanan mar labaad u hambalyaynaynaa madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud u gartay xilkan baannu mar labaad aad ugu hambalyaynaynaa waxaannu aad ugu hambalyaynaynaa ra'iisul wasaare madaxweyne saaxiib la ah muddo badan is yaqaaneen inuu soo doortay waxaannu rajaynaynaa inuu yahay ra'iisul wasaarihii ugu midnaa ee ummadda soomaaliyeed soo mara aad iyo aad baannu u soo dhowaynaynaa haddii aannu nahay dhallinyarada aad baannu u soo dhowaynaynaa
waxaanu mar labaad soo dhaweynaynaa iyo mar saddexaadba halkaan isugu timid xalfadan quruxda badan leh marka hore waxaan salaamayaa madaxweynahayga cusub xasan sheekh maxamuud marka xigta waxaan salaamayaa sida quruxda badan leh uu u doortay xamse cabdi bare waxaan leeyahay laba isdooratay oo shacab meesha ku imaaday mudnaantoodii yeesha waxaan kaloon leeyahay waxaan nahay annaka dad ku nool xeryaha dhadhaab ee qaxootiga xalfadan quruxda badan leh waxaan ku talagalnay ra'iisul wasaaraheenna cusub waxaan leeyahay daadihiya waddankeenna Soomaaliya waxaan u baahannahay Soomaaliya dib inaan ugu noqono waddankoo nabada horaa hadalka madaxweynaha wuxuu ahaa Soomaaliya oo heshiis ah adduunkana heshiis la ah marka xigta qamaqaabiyaasha xalfadda ka soo qaybgalayaasha dadka badan oo juhdi badan geliyay waad mahadsantihiin aan leeyahay waad mahadsantihiin wariyaasha iyo kulli waa mahadsantihiin ra'iisul wasaaraha waa hambaliyaynayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad xamse cabdi bare hambalyo wax qabad buuxaa laga rabaa xasan horaan u aragnay adigaan rabnaa marka maantay mar labaad inaad sida xasan oo kale u soo noqoto ku aragnaa adigana wax qabadkaagaan rabnaa xasan balaqaadkii iyo uu noo sameeyey waa noo fuliyey codsigii aan u gudbinay xalfaddii maalinkii aan qabanayna wuu naga aqbalay xamse waxaan ku leenahay ummadda Soomaaliyeed way ku fiirinaysaa markii ugu horreeyay si cadaalad inaan ugu shaqaysadaan rabnaa xamse waxaan nahay dad qaxooti ah ee 30 sano qaxooti dunida ku ah meel kasta daadsan waxaan rabnaa caruuriya inaan noqoto xamse adiga iyo madaxweynaheena quruxda badan leh xasan sheekh maxamuud Soomaali kulli waa in salaamaya Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaarana uu ka noqday ra'iisul wasaare xasan cabdi bare waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo dadkii xalfadan quruxda badan noo soo agaasimay waxaan leenahay ilaahay mahadiin ka gaarto ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay aruuriye waxay u baahan tahay qof dib u heshiisiinteeda ka shaqeeya xukuumadihiina soo maray waa uga mahadcelinaynaa meesha ayna soo gaarsiiyeen tan hadda cusubna hididiile iyo waxaan ka filanaynaa inay ka sii ambaqaado meeshii ay taagnayd ra'iisul wasaaraha cusub ilaahay waxaan uga baryaynaa xukuumadda loo igmaday inuu u fududeeyo xil culus baa dhabarka loo saaray ummadda Soomaaliyeed daafaha adduunka ay ku kala firiqsan tahay kii soo aruurin lahaa in ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay uga rajaynaynaa mudane ra'iisul wasaare anigoo ka faa'iidaysanaya xalfadan waxaan rabaa fariin yar halkan inaan kaaga gudbiyo maalin dhaweed waxaan dhegaystay kilib aad horay u duubtay waxaad tidhi xilkan la ii igmaday waxaan rabaa inaan jannada ku galo hadalkaasi waa hadal weyn waa hadal ay ka muuqato inaad noqon doontid ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaad u noqdo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku rayn doonto hadalkaas waxaan ka rabnaa inaad ra'iisul wasaare ka soo baxdid oo xilka lagu igmaday aad jannada ku gashid oo mar saddexaad iyo mar labaad iyo mar afraad baad ku soo noqotid ummadda Soomaaliyeed qofkii anfaca way jeclaataa wayna soo ceshataa waxaan filaynaa ummadda Soomaaliyeed inay maaragtay si fiican baan ku soo dhaweynaynaa ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa xilkaas lagu igmaday inuu kula garab galo ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya ha noolaato ha israacdo waa salaamantii ka soo qayb galay munaasabadan aadka u qaali ah ay ugu horeeyaan wariyaasheena qaaliga baxa saxaafadda ururka hooyooyinka dhalinyarada odayaasheena qaaliga dhammaan waad mahadsantihiin saddexda xara ee qaxootiga ayaa laga soo qayb galay xalfadan waa xalfad aad iyo aad u weyn waxaa hadda aan rabaa in halka ka sheego waxaa weeyaan ra'iisul wasaare loo dabaaldegaya waxa sabab u ah waxaa weeye Soomaali
waxay u baahan tahay inay heshiiso heshiiskana waxaa weeyaan madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay oo yiri Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la marka waxaan rabaa inaan fariin u diro ra'iisul wasaaraha Hamza waxaan rabaa inaan fariin u diro fariintaasna waxaa weeyaan meesha uu heshiiska ka bilaabayo waa garanayaa laakiin waxaan rabaa inaan u calaamadeeyo aan iraado meeshaas aad ka bilaabaysaa baasha xagga yaad ka bilaabaysaa waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha inuu ka dago meesha la yiraahdo Garbaharey inuu Garbaharey ka dago oo 7 casho uu baryaan rabnaa meeshaas hadduu Ilaahay yiraahdo Garbaharey waa meesha reerkiisa ay ka soo jeedaan waa meesha asaga u baahan weeyaan Soomaalida waxaa weeyaan xilka waa la kala leeyahay gobolladana waa la kala leeyahay markaad gobollada xasiliso yaad gobollada kale u gudbi kartaa waa inaad Garbaharey aad tagtaa 7 casho aad baridaa oo aad dadka heshiisa midda labaad oo halkan rabo in aan kaga hadlo waxaa weeyaan dadka ra'iisul wasaaraha way amaaneen amaantiisa waxaan rabnaa inaan uu ka bilaabo meesha la yiraahdo gedo uu tago uu soo kaxeeyo Kismaayo keeno Kismaayo uu qaado uu gala geeyo kadib uu gobollada kale u gudbo midda labaad oo ku xijinay waxaa weeyaan dadkan meesha degan waa dadkiisii 300 oo kun oo qof baa degan meesha qaxootiga dawladda Soomaaliya dawladu ah 30 sano ayay Kenya la daala dhacaysay Kenya aad ay u mahadsan tahay waxaan rabnaa inuu qaxootiyada u yimaado xalooyinka dhadhaab qaxootiga inuu yimaado Soomaaliya waxay noqonaysaa qof iyo cod waxa dadkii asaga dooran lahaa ama madaxweynaha dooran lahaa waa dadka halka degan weeyaan aad iyo aad u mahadsantiin waxa aan ka hadlaynaa waa wax jiro qofka waxa fiican waaqi jiro iyo waxa meesha groundka yaala inaad ka hadasho weeyaan aad iyo aad u mahadsantahay ra'iisul wasaare soo dhawow waxa waa dadkaagii ummadaadii baa ku dabaaldegaysaa meel walba ay joogna waa ku dabaaldegaynaa soo dhawow ummadaada way ku sugaysaa filasho wacan baan kaa sugaynaa insha Allah aad baa u mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد حبيب شفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم انت كذب دمان حفلة شرفت له مناسبة شرفت له دليرة odayaasha culimo diinka waxgaradka hooyooyinka iyo warbaahinta dhammaan waxaan idinku salaamahayaa salaan kaliya laaba intaas kadib waxaan mar labaad halkan anigoo ah Cumar Cabdi Faarax hambalyo aan la koobi karin la cadad walaa xisaaba u hambalyeynaya ra'iisul wasaaraha munaasabada loo dhigay ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraheena ra'iisul wasaarihii ummadda ayaan salaan kal iyo laaba iyo hambalyo ugu soo dhaweynaa xafladan ugu hambalyeynaa hambalyo iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato hambalyo iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato xilka lagu idmadayna allaha kuu fududeeyo xilka lagu fududeeyana allaha kuu fududeeyo intaas ka dib tixyaroo gaaban waxaan idhi kii la doortay ee loo duceeyay oo loo durbaatumo mid aan duulin iyo daadihiya noqo cirka oo diiyo dirir hoorayo saddeeda yax soo bixiyo dawlad guuriyow kiina deeqa ee lagu diirsado mid aan duulin iyo daadihiya noqo dabayl nabadgelyo dalka gaadhayow dawadii shacbiga loo soo diro daruur hortay oo doog bixisayow mid aan duulin iyo daadihiya noqo intaasu waxa weeyaan waa iga duco iyo tix salaana oo degdeg iga ah waxaan mar labaad wax yar idinka codsanayaa ra'iisul wasaare nabi maxamed markuu xil ruux u doorto oo uu saxaabada xil u doorto xilka way diidi jireen xil adag baa lagu saaray ra'iisul wasaare harin adag baad ku dhaaratay ballan adag baad qaaday waliba waxaad sheegtay kii ku jirna geli lahaa inaad tidhaahda ayaad noqotay aad ku dhaaratay waxaannu kaa codsanaynaa xilkaas waannu kuugu ducaynaynaa inaad si cadaalad ah oo daacad ah aad u gudato oo lagu wada ammaani mahaye aan lagu wada caayin waxaan kaa codsanaynaa xilkaas inaad daadihiso ilaa raas casayr ilaa raas kambooni soomaali kii midaya aad noqoto midaya noqo isu keena noqo isla doonte noqo isku duuba noqo u daneeya noqo daadihiya noqo isla doonte noqo
isku duuban noqo u daneeya noqo daadihiya noqo dalmidaaya noqo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hambalyo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. محمد صلى إلهي سبحانه وتعالى إيرا مصر إن شاء الله إيرا مصر وحام حسن ومهدون سبنالي إلهي سبحانه وتعالى عز وجل إلهي نمكنيي إني سوماليا دور الشاي قبصته دور الشاي سن نبض أي حلقة يسوي ريتسو مدحوينيه هرئ يكين دمبا أي سن نبض حلقة يسوي ريتيان إلهي سمادو سبناتي مدحوين عبد الله فرماتشو هي مدحوين حسن الشيخ محمود وهرين حلقة يسوي ريتيي عندنا سن نبتقليها حلقة يسوي ريتيي إلهي أي مادو سبناتي dadka Soomaaliyeedna waxay ku faraxsan yihiin nidaamkan qoriisu dhiibka ee dagaal iyo dib lahayn ee musuqmaasuq lahayn ee la isugu wareejiyay xilka waxa xalfadan tada qiimaha badan loo dhigay ee shacabkii Soomaaliyeed isugu yimid haday noqon lahayd hooyooyinka hablaha dhalinyarada ragga culimada diinka ganacsatada warbaahinta dhammaan waxaan leeyahay ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanka bacdi waxaa loo dabaaldegayaa dowladda cusub ee ka dhalatay Soomaaliya ee bedeshay dowladeennii hore waxaa gaar ahaan halkankada xafladda loo dhigay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee la doortay madaxweynuhu soo magacaabay حمزة محمود برة عبد برة حمزة عبد برة رئيس الوزراء وحلنا هاي سور دو كما فرق سور دو سيدا أي أبوانين تشاجين سور دو بان لنا هاي مدايا نقوم لنا هاي قدرت كام فعية كان نقوم لنا هاي annaguna waanu ducaynayna biidnillaahi kariim inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xilka ku asturo waxaa u yaalla xil culus xilka waxaa loo baahan yahay inuu u gudto isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanaya cadaaladna samaynaya ilaahayna la kaashanaya taladana ka qayb gelinaya dadka mudan ee iska leh dadka mudan ee Soomaaliyeed wax garadka culimada leh ee ganacsatada leh ee maxaan ku leeyahay garadka leh inuu maarta wax ka siiyo tashiyo badan inuu sameeyo inuu ka fogaado wax allaale wixii khilaaf keenaya inuu ku soo dumo oo ku soo dhawaado wax allaale wixii isu keenaya Soomaali ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ku guuleysto ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay Soomaaliya isu keenay inuu noqdo isaga madaxweynihiisa iyo maamulkiisaba insha Allah ta'ala dalka iyo dadkaba waxaan ugu ducaynaynaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay shariicadiisana qaataan dadkuna ay ku soo dhawaadaan diintooda iyo dalkooda iyo walaalnimadooda iyo jacaylkooda wixii ilaahay u amray subxaanahu wa tacaala nabigooduna uga tegey oo sunnada nebi maxamed iyo kitaabka qur-aanka ah dadku waxaa la rabaa inay u dabaaldegaan waxa wanaagga wax xumaantana ilaahay ay ka baryaan oo ka ducaystaan waxaan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dhan waa walaalo nooc doon ha noqoto waa walaalo cidii wada hadal qabta lala hadlo cid kasta oo meel joogto oo Soomaaliyeed oo wax diidan waxay diidan tahay lagala hadlo hal la isqanciyo ayaan leenahay ku soo dhawaynaynaa Soomaalida hal la isqanciyo Soomaalida waxaa anfacaysa in la isqanciyo ka duurka ku jira iyo Somaliland iyo cid kasta iyo ku mucaarada waxaa qanciya in la wada hadlo dalka iyo diinta iyo dadku way naga dhaxayaan maamulka cusub ee Xasan Sheekh uu madaxdu yahay waxaan ku codsanaynaa inay dalka iyo dadka mideeyaan cid walba geedkii joogto ugu tagaan inay la hadlaan inay dal nabada iyo dal nabada inay ku wareejiyaan xilka cid allaal cid kaga guulaysataa dinkarna ilaahay ayagu soo celiyo marka taasaan ugu hambalyeelaynaa insha Allah ta'ala toon soo dhawaynaynaa cid allaal cid ka qayb gashay ee soo abaabushay arintana waan mahadcelinaynaa biidnillaahi kariim waxaan leenahay tawfiiq ودجير يا ولالنما بإذن الله الكريم تاسن كدعينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عليكم سلام تسلم قاعدين السلام يا سلام كدب ومالي وين صوماليا همدايو صوماليا هسرعلو صوماليا همدايو صوماليا هسرعلو إلهي يو دباتنا نقبح إلهي دباتنا نقبح إلهي يو دولة عدالة نصيب إلهي يو ضدك العصب إلى دورتين مدحوين حسن شيخ هي الرئيس الوزاري حمزة عبد بري on xafladan maanta u soo agaasimay ilaahay ha ka dhigo kuwii waddada tooska qaada waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamsi in ay ka dhabeeyaan Soomaali mida iyo Soomaali heshiisa iyo dunida heshiisa waa hal ku dhigoodi waxaan ka sugaynaa 5 sano markay dhamaystaan inaysan kursiga isku sii adkayn inaysan waqti dama naga sii dhigin hadday tartamaan oo dib ugu soo noqdaan waan soo dhaweynaynaa haddii laga guulaystana si sharaf leh ku wareejiyeen waxaan kaloo u mahad celinaynaa walaalihii 5 sano soo waday iyagana waad mahadsantihiin baan leen ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo wixii gafa idinka dhacayna ilaahay ha idinka dhaafo wixii wanaageed samaysanna ajir iyo xasanaad Allah idinka siiyo anigu waxaan leeyahay Soomaaliya waa barwaaqo Soomaaliya waa meel saddex aan la helin ay kulmisay waa wabiyadii badii iyo xoolihii iyo fooxi iyo malmalkii waxaan leenahay ilaahay kuwii nabad ku maala ilaahay ha naga dhigo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa 5 sano ee soo socota in aan isbedel راس عسير الله راس كمبونيا إنان ترينو وحان رجينا 5 مامل قبلات لبدا أقل برلمانكا إيو مدحوينها إيو رئيس الوزراء إيو جمعها إسايستا إنا 5 سنة كل ما يستان رئيس الوزراء وحانو جرني دردار رئيس الوزراء واحد كسو جدا شبلان مدمدو يربا كجرا وحانكو كان رجينا طلابدا كوباد قادو inay noqoto in aad Jubbaland midayso Soomaaliya oo dhan aad midayso sida oo wiilkan abtiga hore u sheegay ra'iisul wasaare Garbaharey ka deg ra'iisul wasaare ka deg Ceelwa ra'iisul wasaare Balxaawa ka deg ra'iisul wasaare Luuq ka deg ra'iisul wasaare Doolal ka deg ra'iisul wasaare Isukeen ummadda Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa raggii soo agaasimay munaasabadan oo anigaba ka mid ahaa dhalinyaradii qiimaha badnayd iyo gabdhihii qiimaha badnaa ee munaasabadan sida quruxda badan u soo agaasimay iyagana waan u mahad celinayaa bahda saxaafaddana waan u mahad celinayaa ilaahay ajir iyo xasanaad iyo khayr ha idin siiyo waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed war Soomaaliyey Soomaali mida Soomaali mida Soomaali mida Soomaali mida Soomaali mida Soomaali barwaaqo Soomaali baraara Soomaali gamaha isaysata Soomaali wada jirta Soomaali isla jirta Soomaali isku tiirsan Soomaali gamaha isaysata Soomaali wada socota Soomaali isla cunaysa Soomaali isla cabaysa guul iyo gabaniyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi oo barwaaqaysan meesha isku kan keenay waa mahad iskale inta kadib waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee isugu timid xafladan quruxda badan gabdhaha wiilasha caaqiliinta waasiyada dhammaan waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxaan u hambaliyaa in hayaa ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaheena xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha cusub xamse cabdi barre oo aan xafladan ugu talagalnay kuna soo dhaweynayno raallina aan ka nahay boqolkiiba boqol aan soo dhaweynayna aan ku faraxsanahay xilka loo magacaabay waxaan leeyahay madaxweynaha ninbaa wuxuu yiri baa leeyahay waa ilaahayow eed kale ku waayay ilaahayow dhaliil kale ku waayay laakiin xaqa wuxuu ilaahayow waa daahisaa uu yiri baa leeyahay hadda waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ceeb kale oo ma hayno waa soo shirabnay oo madaxweynaha anaga hore waxa laakiin waxaan ku dhaliilaa ra'iisul wasaaraha aad u bedela
marka waxaan leenahay ra'iisul wasaare madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya ka horeeyay waxayna bareen idinku aadna barteen inaad isugu wareejisaan qalin iyo si qurux badan xaq magaranaysaa xilka isugu wareejisaan haddana adiga waxaan ka ranmayaan ka codsanaynaa inaadna barto ra'iisul wasaare iyo madaxweyne xilligooda isla dhamaysta inaadna bartaan ka codsanaynaa annaga oo Soomaalida shacabka Soomaaliyeed ah waxaan kale oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku soo dhaweynayaa xafladan quruxda badan annagoo ah dalka Kenya joogno oo shacabka Soomaaliyeedna ka mid ah waxaan idin kula dardaarmaynaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare Soomaaliya waxay ahayd 18 gobol 18 gobol ee Soomaaliya ay ahayd gobol baa ka maqan gobol buu cadow haystaa gobol bay argagixisatu haysataa waxaan idin ka codsanaynaa gobolada Soomaaliya oo lamid inuu noqdo gobolka cadowga inaad ka xoreysaan baan idin ka codsanaynaa waxa weeye madaxweynayaasha hore way ku fashilmeen gobolkaas waxaan idin ka codsanaynaa gobolada Soomaaliya inuu ka mid noqdo ama aad tiraahdaan gobolada Soomaaliya ka mid ma aha oo gobolada Soomaaliya waa 17 gobol inaad dhahdaan ama gobolka aad xoreysaan oo cadowga ka xoreysaan baan idin ka codsanaynaa aad iyo aadna waad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol waad soo dhaweynaynaa shacabka iyo dadkan xafladda quruxda baan soo dhaweynaa aad bay mahadsan yihiin assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu wuxuu yidhi gooweyn anu qaatay xaragayay garasiibuy gabadh iyo garoobtii wax galayay garasiibuy guduud iyo madowtaan ka dhigan yay garasiibuy gobta dumarka iyo raaliyada yay garasiibuy midda gaar laga jiray midka joogo gurigeeda gacalo tiidoon iyo gobasha laabayn wata gobada waayay yay garasiibuy gaba iyo quraan iyo cilmiga yay garasiibuy kuxishiyo go'aad iyo waxbaan galnaa waxbaan ku soo wataan ومبارح ما فديل ياي جرسيوير وقلها تنعوش كدي ياي جرسيه كان عايزاني متى سوهان كان ياي جرسيوير قاليد كي نرجع تانوك ياي جرسي قولوا قدامنا هيو سلة جرواي قعنت تيلا وتي قاحي ورانيس والجورة يقول انت ياي جرسيوير حتى وحكسه والله أنا نوالينا واحد ويو عم يسوي سارة هلو دورت المدحوين هلو دورت وحانو تشعل هاي وأنا صرنا وينا مدحوينها حسن محمود شيخ إيوه سلوساري إنسان حمسة حسن عبدي حمسة عبدي بري وعنكو صرنا ويننا قول عنتدي يا صدقوني قول عنتدي يا صدقوني انت كان ماشي تورن maanta loo dabaaldegayo sawirsaaraha iyo madaxweynaha ha ogaadaan inay u baahan yihiin oo sidan kuwii hore ee hawsha soo qabtay inay ka fiicnaadaan oo hawsha beddelaan oo dawlad iyo shacabkooda si fiican ugu shaqeeyaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wadoonka loo sacbi shacabka shacab abwaanka shacab haddana waxaan inaan fursad halkan salaamaya assalaamu calaykum marka xigta ilaahay baa mahad iska leh anugu halkan bixi badan kama sii jeedinayo waa hambalyo waxaan meesha ka dirayo madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha cusub mudane xamse cabdi barre labadaas baan hambalyo u dirayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan u dirayaa mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud dawladdaadu waa dawladdii aan aad iyo aad ugu dabaaldegnay muddadii hore iyo muddadan dambaba waxaan rabnaa wixii qabya ka ahaa inaad noo qabya tirto dastuurka uu ka koob yahay ummadda Soomaaliyeed heshiiskeeda iyo walaalnimadeeda ay ka laba tahay dadkan qalbigoodu yar kale waxaysan yahay inaad isku soo duubtaan dhalinyarada u fara badan saddex xiree qaxootiga dhadhaab inaad wax ooga qabataan dhanka waxbarashada iyo dhanka tacliinta mudane madaxweyne iyo ra'iisul wasaare xamsa waxaan inuu dardaarmayaa tawfiiq iyo midnimo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha guulaysato wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadweynaha dhammaan waan salaamayaa salaan kadib my name is Hassan Gedi
ward administrator first ward dhammaan waa horta marka koowaad waxaan bixinayaa raaligelin waayo waqti hore la rabay inaan imaado maadaama ay weekend ahayd laakiin xoogaa meeting ayaan ku maqnaa sababtaa jirta awgeed ayaan u soo daahay waa mahadsantiin dadka xalfadan soo qaban qaabiyey waa maalin farxad leh inaa waqti hore ka soo horgala aan imaado ayay aad u wanaagsaneed laakiin xoogaa shaqo jirto oo maambo iskuulta ku saabsan ayaan ku maqnaa haddana maadaama aan noqotay inaan waqti dambe imaado waxaan isku qasbay inaan anigoo daalan aan ka soo qayb galo munaasabadda si aan ila farxad qaado waa maalin aad iyo aad farxad leh marka koowaad waxaan u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed oo halkan isku imaatay tan labaad waxaan u mahad celinayaa arrintan dadka soo qaban qaabiyey waxaan leenahay waa 100% waa mahadsantiin waa Soomaali heshiisay duni I think I lay out in Somalia say Kenyan baan nahay laakiin af Soomaaliya jabsan ee dhimale waxaan leeyahay Somali maalintii la dhisay maanta intii waa markii koowaad oo ra'iisul wasaare aan ka helnay Soomaa as ogaadeen people Soomaa waa farxad runtii waraan xaqraad lay jiri jirtay waayo markaan fiirno ogaadeen markii la Ethiopia waa joogan Soomaaliya waa joogan Kenya waa joogan meel walba ay joogan madaxay ku yaan like inta kalena anag weyn agmita Soomaali ma isla nahay Soomaa waa ku maadsan marka koowaad waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya His Excellency Xasan Sheikh Maxamuud mar labaad waxaan u mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay sidii loo soo magacdaabay ra'iisul wasaaraheena cusub asagana waxaan ilaahay oo baryaynaa xilka loo dhiibay inuu ilaahay ku ceewaynin inuu ilaahay ula garab galo waayo xilka waa xil yar maaha waa xil weyn waana markii koowaad oo aan qaadnay inuu ilaahay ka dhigo ku aan ilaahay ugu ceewaynin anagoo dhan waxaan kaloo rajaynaynaa insha Allah the next president inaan anaka noqono haddana maanta I mean